buuggan The Psychology of Money waa mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo lacagta. waa buug aad wax badan ka baran doontid haddii ay noqoto sidaad u manage garaysan lahayd lacagtaada iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaad fahamto lacagtu waxa ay tahay. buuggan wuxuu ku barayaa lacagtu inay tahay tool aad u baahan tahay inaad isticmaasho si noloshaada ugu maareyso oo intaa wax ka badan aysan ahayn. hadda waxaan doonayaa inaan la wadaago muuqaalkan 7 qodob oo muhiim ah oo buuggan aan ka faa'iiday oo laga yaabo adiguna inaad ka faa'iido. sidoo kale muuqaalkan waxa kula socda description-ka hoose meel aad kala soo degi karto buuggan oo PDF ah. marka soo dhawaada. horinteena muuqaalkan u guda galin waxaan ka codsanayaa video-gan like inaad noo saarto, sidoo kale channel-keena aad ku soo biirto haddii aad ku cusub tahay wax badan baad ka faa'iidi doontaa. marka soo dhawaada. waxyaabaha buuggan aan ka faa'iiday ee aad iyo aad muhiimka u ah soo jiito waxaa ka mid ah in uu ku baro muhiimadda ay leedahay wax la yiraahdo compounding effect ama in qofku uu ka fikiro mustaqbalka fog. buuggan wuxuu ku barayaa in aad lacag kaydsato laakiin si aad uga fikirto lacagta mustaqbalka dambe ee fog. waa inaad maskaxdaada bartaa 30 sano soo socda 20 sano soo socda inaad lacag kaydsato. wax kasta oo aad u dhigan karto waqti aad u fog ha yaraadaan haday doonaan waxay noqon doonaan wax compound fiican yeesha oo aad isku fulfuula kadibna lacag wanaagsan ku noqda. tusaale kooban baan siinaya haddii aad bil kasto $200 meel ku save garaysato 30 sano soo socda waxay ku noqon doontaa lacagta $72,000 waa laakiin se waqti aad iyo aad u fog. marka 30 sano kadib hadda waxaa laga yaabaa inaad 50 sano jirtid ama 60 sano jirtid waa waqtiyada u baahan tahay inaad retired noqotid. marka in 60 jirkaaga marka aad hesho lacag inta la eg wax badan bay ka caawin doontaa. waxay ka caawin doontaa inaad maybe guri ku dhisato ama inaad mashaariic kale ku fuliso ama in caruurtaada aad marka ku kaalmayso. marka qodobka koowaad ee muhiimka ee buuggan ka barto waxa weeye in aad ka fikirto mustaqbalka fog oo aad samaysato kayd wanaagsan oo lacag ah adigoo xitaa ku bilaabay wax aad iyo aad u yar. muhiimadu ma aha lacagta la kaydinayo farabadnideeda ee muhiimadu waxa weeye in aad lacagta iska ilaaliso muddo aad iyo aad u fog si mustaqbalka dambe aad uga fikirto. qodobka labaad buuggan ku bari doono waxa weeye psychology ka dambeeya walwalka lacagtu ay leedahay. wuxuu ku barayaa lacagtu kaliya walwal ma lahan markay ka maqan tahay ee lacag la'aan ay ku hayso sidoo kale lacagtu waxay wadataa walwal kale markay ku soo gasho. for example iminka waan garanay lacag la'aan markay qofka uu yahay ama uu u baahan yahay dhaqaalahaas inuu ka maqan yahay waxay keenaysaa inuu wax badan ka fikiro. sidaas la mid ah waxay wadataa walwal ka badantaa qofka marka uu lacag badan helo ama markay lacag soo gasho. for example iminka haddii lacag ku soo gasho adigoon filaynin ama aad lacag hesho waxyaabaha ugu badan ka fikir doontaa lacagta maxaa ku samaysaa maxaa ku qabataa lacagta kolo waxa ma ku soo iibsataa xagaa ma geysataa ma samaysaa waxa dhigi doonta lacagtii laftirkeeda inay problem kugu noqoto. marka waxaad u baahan tahay adigu laftirkaas psychological inaad barato lacagta iyo sida loo maareeyo. hadhow waxay keeni doontaa lacagta haddii ku soo gasho haddii aanad maareyn oo waxaad doontaa ku samaystaa hadhow markay ka dhamaato in walwal dheeraada kugu keento oo hadhow markaa ka sii fikirto. marka waxyaabahan ka bartay ka mid ah buuggan psychology ka dambeeya lacagta iyo inaad isbarto qaababka u xakameyn lahayd lacag haddii ku soo gasho iyo markay ka maqan tahay si aad walwalka isaga yareyso. sidoo kale waxyaaba cajiibka buuggan ka barto waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano hantida iyo taajirnimada farqiga u dhexeeya. qofka inuu taajir noqdo iyo inuu noqdo qof hantiila ah laba qodob oo aad iyo aad u kala fog weey. taajirnimadu waa wax dhamaanaya haddii mindset-ka qofka ama maskaxdaada ay ku jirto inaad taajir noqoto hadhow waxaad dhici doontaa haddii lacag aad hesho inay si degdeg ah ka dhamaato. marka rich iyo wealth farqiga u dhexeeya ku bari doonaa buuggan oo ah farqi aad iyo aad u ballaaran. qofka inuu noqdo qof hantiila ah waxay keenaysaa isagoo hanti badan leh inaysan ka muuqanin ama lacagtiisu ay noqoto lacag shaqaysa oo meel ku jirto. laakiin lacagtaada haday noqoto lacag richness ah oo liquid ah oo ku dhow waxay iman doontaa dhow markii inaad gubto oo dhaqsiga kaaga dhamaato. marka buuggan waxyaaba ku baran doontaa ka mid tahay farqiga u dhexeeya hantida iyo taajirnimada. sidoo kale qodobka afraad ee buuggan aan ka faa'iiday waxa uu ku barayaa in aad firaaqadaada iibsato. wuxuu ku barayaa in aad mar walba ka fikirto waqtiga aad haysato. waqtigu waxa uu ka muhiimsan yahay lacagta. marka waa inay sida kugu kala weyn imika sida caadiga waxa dhacdo qofka in waqtigiisu uu ka yar yahay lacagta. qof baa laga yaabaa in 6 maalmood uu shaqeeyo maalintii 8 saacadood uu shaqeeyo waqtiga inta uu shaqeynaa in ka badan ay kaga baxdo inta shaqadu u socdo markuu guriga joogo la soo hadlo. marka majority-ga waqtiga qofka wuxuu ku bixinayaa in uu shaqeeyo
marka waxaad aamintay in lacagta yar ee lagu siinayo ay ka badan tahay waqtigaaga. marka buuggan wuxuu ku barayaa psychologically in waqtigu uu ka muhiimsan yahay lacagta. waa inaad marka ka fikirtaa qaabab waqti yar aad u shaqayn kartid lacag badan u soo saari kartid. marka fikraddan waxaan ku arkay buugga uu qoray qoraaga Tim Ferriss ee la yiraahdo The 4-Hour Work Week oo buug aad iyo aad u wanaagsan. soo buugga wuxuu ku barayaa in aad muddo kooban shaqayso lacag fiicanna hesho oo mar walba waqtigaaga uu kala weynaado lacagta ay helayso. marka fikraddaas wuxuu ku bari doonaa qaabab badan oo uga faa'iideysan kartid waqtiga si aad lacag fiican u samayso. wuxuu ku barayaa in aad xitaa waxyaabaha qaar delegation ku samayn kartid si waqtigaaga uga faa'iideysato. wuxuu rabaa inaad noqotid qof xor ah waqtigiisa in yarna shaqayn kara adduunka meeshuu doono ka shaqayn kara familkiisa waqti la qaadan kara dalxiisi kara. marka iyo muhiimaddu leeyahay waqtiga. marka qodobkaas muhiim wuxuu ka mid yahay waxyaabaha buuggan The Psychology of Money aan anigu ka faa'iiday. qodobka shanaad isna muhiimka waxa weeye wuxuu ku barayaa buuggan haddii aad hanti hesho ama haddii aad lacag leedahay ama haddii imikada neer laftirkeeda taa qof meel ka shaqeeyo oo lacag ay soo gasho in aad isbarto dabeecadda inaad isqariso in aad lacagtaada ku fataalin oo waxyaabo badan oo maalayaan aadan iibsanin in lacagtaadu aynan ka muuqan oo dhaqdhaqaaqeeda aan la arag. at the same time u baahan tahay inaad qurxiso waxyaabo cusub iibsato laakiin aad limitkeedana ka bixin sidoo kalena aad mar walba ku noolaato in ka yar inta aad awoodi karto. haddii bishii ku soo galayso $1 waa inaad ku noolaataa $700 ka yar. sidoo kale waxyaabo buuggan ka faa'iido waxa kamid ah in aad iska ilaaliso taajirnimada degdega ah. soo taajirnimada degdega waxa weeye in aad mar walba isku dayo inaad maal gashato waxyaabo shaki ku jiro oo scamming lagu sameynayo oo aad mar walba ka fikirto si degdegna u taajirto. laba mid bay noqonaysaa taa ama in aad lacagtaadii weydo aad khasaarto ama in aad degdega inta ku taajirto markiiba lacagtaada hin kari weydo. marka wixii degdeg kugu soo galo degdeg bay kaaga baxay. marka mar walba iska waxyaabaha shadiga ah scamkii waxaasa ee lagu leeyahay $100 bixi $500 lagu siinayo bishan iska ilaali. waxaad doonaysaa in wax maal gashato waana ka fikirtaa maalgashi fog oo compoundkiisu 30 sano 20 sano yahay oo aad sanadaha dambe ka faa'iidi doonto oo laakiin si la isku halayn karo. qodobka u dambeeya buuggan ka faa'iido wuxuu ku dhahayaa in aad mar walba iska ilaaliso waxyaabaha halista ah ee dhaqaalahaaga dib u keeni kara. in aad qaadato deem aad iyo aad u weyn oo aadan bixin karin waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni kara qofka inuu halis badan galo oo uu ku qaato waqti badan inuu free noqdo uu ka soo noqdo. marka deyntu waxay ka mid tahay waxyaabaha keena qofka in horumarkiisa uu yaraado. marka iska ilaali deem badan inaad qaadato iska ilaali lifestyle ka baxsan noloshaada inaad ku noolaato oo aad soo iibsato waxyaabo qaali ah adigoo heli karo waxyaabo inta ka fudud oo noloshaada ku maareyn karto. iyo sidoo kale inaad la saaxiibto dadka taajirsan oo lacagta sida u daadinayo meelaha lacagta badan ku bixaysa fadhiisanaya mar walba u tagto. marka buuggan waxyaabo badan baa ka faa'iiday. aniga 7 qodob baan ka soo qaatay aad iyo aad muhiim ku ah. haddii aad doonaysid inaad akhrisato linkiga aan soo geliyay description-ka booqo kadib waxaad website-kayga ka heli kartaa. marka ay hubinaa ka faa'iiday wax badan muuqaalka. sidoo kale waxaan ka codsanayaa video-ga like inaad noo saartaan si dad badan u gaaro channel-keena ku soo birtada cusub tahay. aad baan idin salaamay. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.